iskoolka hoose dhexe magaalada Woodward ayaa maanta oo sabtida taariikhduna ku beegan tahay 10 Abriil 2022 waxaa saaka si rasmi ah uga bilowday final examination imtixaanka ugu dambeeyay sanad dugsiyeedka 2022 waxaana u fadhiistay arday aad u badan maamulaha iskoolka Xawa Xasan Aadan ayaa ka warbixisay furitaanka imtixaanka dhanka kale waxa ay ka warbixisay muddadii ay gacanta ku haysay iskoolka waxyaabihii uu qabsoomay waxayna ku samaysay dayactir ballaaran iskoolka markii hore ma uusan lahayn deer balse hadda waxa uu leeyahay deer iyo ganjeel laga soo galo waxaana ka muuqda isbedel weyn maamulaha Xawa Xasan Aadan waa macallimad muddo dheer ka soo shaqeysay iskoolka ardaydii ay u bilowday Soomaaliga kuwa badan ayaa hadda macallimiinka ah gobolada dalka qaarkoodna waxa ay hadda wax ka dhigaan iskoolka waxaana haladeedii kamid haasadatan الله وبركاته دمان انت مقعيدا iyo muuqaalkayga ba taqaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigoo ah maamulaha iskoolkan hoose dhexe Woodward magacaygu yahay Xawa Xasan Aadan Xawa Coomaade iskoolkan sida aad ku arkaysaan waa iskoolka deegaankan Woodward ugu ballaaran uguna maxay tahay da'da weyn ilaa iyo heerar kala duwan heerkii gumaystiga iyo maanta oo marxalada kala duwan maanta marxaladii ugu wacnayd uu marayo arday aad fara badan ay ku soo xirooto oo maxay tahay isugu jirta hoose dhexe maxay tahay wiilal iyo gabdhaba ay beretamayaan fara badan yihiin tiradoodu ay gaarayso 450 waxa weeye ma sha Allah waa wax loogu mahadnaqo Ilaahay maxay tahay isagoo iskool kale ka furan yahay oo la yiraahdo Ilaahay soo saddexe Woodward isaguna maxay tahay ardaynta leegi iyaduna ay ka kooban iyaguna inta in ka yar iskool laba maanta oo deegaankan yeeshay laba iskool oo hoose dhexe iyo dugsi sare heer jaamacadeed oo kaliya ay ka dhiman tahay aad iyo aad baan Ilaahay ugu xamdiyeynaa maxay tahay anigu waxaan ahay gabadh maamule markii horena macallimad ka soo ahayd 20 sano iyo aboof baan maanta joogaa ilaa iyo 5 iyo 10 dacfadood baa ka baxay intii aan hadeer joogay waxa ay soo qalijabiyeen intanoo dacfadood hadeerto ilaa 8 dacfadood oo heer jaamacadeed ayaa hadeer ka soo baxay heer jaamacadihii intii aan joogay waana ardaydii aan u bilaabay iyagoo ibtidaaiya alxamdulillah still wali waxaan rabaa inaan sii wado maxay tahay inkastoo aan hadeer retired ku dhawaahay haddana waxa weeyaan cid aan uga haro baabaan garanayn anigu waxa weeyaan marxaladda iskoolkani markii aan qabtay intii hadeerto 2015 laga bilaabo waxaan gacantan ku hayay dayrna ma lahayn dayactir badanna muu qabin iskoolkan waxaan gaarsiiyay heer ummadoo dhan yiraahdaan kombas jaamacadeed ayaad ka dhigtay maalinba waxaan maxay tahay u sameeyaa dhaqaale u dhigo kayda sanduuqa dhaqaale oo mar walba heer gaara maxay tahay markii ugu horeysay aan ka bilaabay $200 maantana maxay tahay ay galeen sanad dugsiyeedkan kaliya $10,000 ay maanta ku baxday haday tahay agab kuraasi iyo haday tahay dib habayn dhamaantii la qolof rogay iyo maxay tahay cadayn istambar iyo nooc kastaba maxay tahay ganjeelka aan markii horena galiyay oo haddana aan ka bedelay dayrkii oo dhamaantii aan xidhay siligii aan ku wareejiyay alxamdulillah ma sha Allah waxa weeyaan intaas wax qabadkaas ballaaran waxaan ku fekeray maanta waari maysida waraka haro adduunka qoraxa sar joogtaana jilka ka dambeeya inuu nooga aayo ayaan maxay tahay taariikhda isqoraysaana ay naga qormaan wax aayatiin gara oo ka urka ku jira iyo ka dhalan doona iyo ka soo socdaaba ay nooga aayaan ayaan anigu maanta haddaan ka tago aan kaga tagayaa alxamdulillah dadka iyaga dibadaha iyo maxay tahay kuwa dalka joogana aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya waayo iyaga laftigoodu ma wax qabad yara laakiin meeshii ay wax ka qabtaan ba anagu waa ugu bogaadinaynaa inkastoo aan dugsigan wax qabada aynan ka soo gaarin haddana anagu waxa weeyaan haday dugsi sare soo awayaan iyo haday maxad soo awayaan maxay tahay intaba anagu waxa weeyaan dhaqaalaha waa mid deegaanka soo galay waana mid aan ugu xamdiyeyno waa mid aan iyagana maxay tahay meesha ay ka soo saareen Ilaahay ajar iyo xasanaad dheeraad Ilaahay ugu daro maxay tahay warbixinta iskoolkan haddaan idinka siiyo waxa weeyaan
وأرضيدا محي تدقتا أو تردا قارسة waxaa ku jira agoomo waxaa ku jira rajooyin waxaa ku jira arday aan waxba iska bixin karayn intaas oo dhan saacidaad ardayda macallimiinta ayaa wada waxay ka saacidaan 12 macallin ayaa ka howlgala waxaanu kaga saacidnaa inaanu fii ka qaadin aanu iska dayno carruurta iska sidii maxay tahay voluntary wax loogu dhigo maxay tahay ardaydaas aanu gacan qabanno si ay iskoolka u jeclaystaan aad iyo aad baanu maxay tahay u weydnaa jaaliyada dibadda xanuunada xaaladaha jira ilaahay nama soo gaarsiiyo ilaahay dhibaato iyo xanuuno toona maana maxay tahay ma soo wajihin iskoolkan waanu ladanahay alxamdulilah waxa ilaahay loogu mahadnaqo baanu qabnaa xoogay jilaal adag oo iyo abaaro ayaa ka jira deegaanka iyo meel walba oo Soomaaliya kamid ah marka annaga hadeerta waxaa jira xaaladda biyo la'aanta ayaanu iskoolka u soo kufinay iyo xaaladda jilaalka adkaaday ayaanu u soo kufinay ilaa bisha 5aad ayaa imtixaanka la qaadi jiray gabagabada bisha 5aad ilaa 6aad marka hadeerta hawshan noogu kaliftay inaanu afraad imtixaankii aanu Ramadaan ka gaarsiino waxa weeyaan xanuuno deegaamada laga sheegayo iyo xaaladaha jilaalka adag ee biyo laga waayay deegaanka ayaanu kooskaraysaynanu hawsha soo kufnay imtixaamaadka oo maanta oo sabtiya aanu bilowno maadadii ugu horeysay una socon doono ilaa iyo 7aad waa sida iyo nabadgelyo waanu idin salaameynaa dhammaan dadka magacayga yaqaan ama muuqayga yaqaanaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana idinku soo dhaweynaynaa iskoolka ku soo dhawaada dalkiisa iyo dadkiisa عبد الرحمن محمد صليبان عبد الرحمن بلشاوي ورور ميديا